badda Somaliland waxa ay leedahay jasiirado tiro badan oo muhiim u ah dhinacyada istiraatiijiyadda dalxiiska iyo kalluumaysiga waa arintaynu ku eegi doono barnaamijkeenan waxaana aynu qaybtan si gaar ah ugu soo qaadan doonaa jasiiradaha uu caanka ku yahay gobolka Salala marka aad ka dhaqaaqdo magaalada Saylac gudaheeda ee aad xagga badda aado waxaad sii dhex maraysaa jidka isku xidha dekedda iyo magaalada Saylac waa jid balaarkiisu uu kooban yahay oo carratuul iyo dhagxaan lagu buuxiyay kaasi oo ay soo raacaan gaadiidka xamuulka ka soo qaada dekedda magaalada Saylac inta aad jidkan ku sii jirto waxa hareeraha ka qabanaya cimilo isku dhafan una eeg bad iyo bari isku jira waa kayma dhira hase yeeshee biyihii badda ayaa dhex jiifa waxaanay u eegyihiin sidii haraweyn oo fadhida oo kale muuqaalada aad la yaabayso waxaa ka mid ah in aad arkayso xoolo siiba geela oo daaqaya dhirtan iyo biyaha badda ee isgalay hase yeeshee goobtan ayaa mararka qaarna isu rogtaa bari caadi ah iyada oo ay baddu dib uga caarido halkani waa dekedda kooban ee magaalada Saylac taasi oo tan iyo qarnigii 15aad la soo isticmaalayay inkasta oo ay muddooyin kala duwan hakad u galgalay hase yeeshee isma laha muddada dheer ee ay soo jirtay dekeddani iyo muuqaalkeeda maanta ee iska daciifka ah kaliya waxa isticmaala doonyo yaryar oo ah kuwa kalluumaysiga iyo waliba doonyo waxoogaa bagaasha ka soo qaada meelo ay ka mid yihiin wadamada Carabtu inkasta oo aanay aad u badnayn markaad ka dhaqaaqdo dekedda magaalada Saylac ee aad badda hoos u sii gasho waxaad dareemaysaa jawi xasilan oo naftu ay ku degayso sidoo kale ma jiro kulayl iyo huur siyaada ah oo ay naftu dhibsato iyada oo uu heerkulkoodu aad uga hooseeyo meelaha kale ee xeebaha ku yaala ee bariga qaaradda Afrika kadib 7 kiiloomitir oo aad badda si dhex mushaaxaysay waxaad gaaraysaa jasiiradda ugu weyn uguna caansan dhammaan jasiiradaha Somaliland ee Sacaadadiin waxa uu ahaa nin uu dhalay mid ka mid ah boqorradii Saylac soo xukumi jiray xilligii dawladdii Islaamka ee Cusmaaniyiintu ay halkan ka talin jirtay kaasi oo isaga laftiisu boqor ka noqday halkan waxaana la sheegay in isla goobtan lagu dilay laftiisa jasiirado tiro badan ayaa iyaguna ku yaala eeriyadan waxaase laga yaabaa in badanka dadkeenu ay warmoog ka yihiin waxaana jasiiradahan ay ku xiran yihiin xuduudda biyaha ee gobolkan Salala jasiiradahaasi ayaa waxa ay jihooyinka waqooyi ilaa waqooyi galbeed kaga beegan yihiin magaalooyinka Saylac Doqoshi iyo Lawyacado waxaanay qayb ay ka yihiin jasiiradaha tirada badan ee ku filqsan badda dheer ee Somaliland min bari ilaa galbeed hase haatee gobolka Salala ayaa jasiiradihiisu waxa ay kaga duwan yihiin dhinaca balaarka barigooda oo aad u balbalaaran oo waaweyn iyo iyaga oo ah tirada ugu badan ee hal gobol ku wada taala marka aad timaado Sacaadadiin waxaad arkaysaa wax ka duwan fikirkii hore ee aad ka haysatay amaba ay dhagahaagu maqli jireen waxaad dhexgelaysaa mawjadaha naxariista balladeemoodka awgeed ishu kama daasho jaljaleeca iyadoo jihada adeegtaba aad ku dheegaygayso dabeecadda la yaab kale ee quruxda badan ee Rabbi ku munaystay jasiiradan Sacaadadiin jasiiradda Sacaadadiin waxa dhex mara gacan sida webiga ah oo jasiiradda bartankeeda mara
waxaana hareeraha ka soo xulaa dhir fara badan oo green amaba dooga kuwaasi oo la sheegay in siidhkooda dibadaha laga keenay isla markaasina ay beereen dawladihii ka horreeyey ingiriiska ee halkaasi xukumi jiray 100 sano ka hor mararka qaar ma rumaysan kartid meesha aad joogtaa halka ay tahay hase ahaatee xaqiiqadu waxay tahay inay Soomaaliland ay leedahay boqolaal goobood oo sidan oo kale quruxdooda iyo bilicdooda ay ishu ula dhaygayso waxaa intaasi dheer doonyaha iyo laashashka ay dul buuxiyeen ciidamada Soomaaliland ee ilaalada xeebaha oo marka la eego dirayskooda shucaaca bixinaya ee ay ku labisan yihiin midabka isha qabanaya ee doonyaha ay saaran yihiin biyaha badda ee buluuga ah iyo dhirta gasiiradda dhinacyada kaga xeeran oo iyana midab akhtara soo tuuraya ayaa isku darka sifooyinkan oo dhami waxa ay sameeyaan micno iyo dareen kale oo siyaada ah dhulkani sidan uma qurux bateen haddaan amnigiisu sugnayn isla markaasina aanay ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland aan si buuxda uga howlgalaynin haddaba taliyihii hore ee ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga labaad ee galbeedka Soomaaliland kabtan Cabdiweli Cabdilaahi Warfaa oo dhawaan xilkaasi laga bedelay balse waqtigaasi aan halkaasi kula kulnay isagu ahaa taliyaha aagaasi ayaan wax ka weydiinay ahmiyadda ay gasiiradani ay ama gasiiradahan guud ahaan ay u leeyihiin Soomaaliland iyo qaabka ay ciidanka ilaalada baddu halkaasi uga howlgalaan iyo sidoo kale tirada jasiiradaha ee aagan Sacaadiin iyo hareerihiisa ka dhow imka eeriyadan waxa ku yaala ilaa 7 gasiiradood ayaa ku yaala eeriyadan oo imka gasiiradan aynu ugu joognay Sacaadiin ay ugu soo horeyso halkan waxa inaga xigta gasiiradii labaad ee ugu weyneyd ee la yiraahdo ceebaad xagan waxa ku teedsan ilaa 5 gasiiradood oo Mashaaq ka mid tahay oo Qoomaali ka mid tahay oo Abu Milix ka mid tahay waxa weeye waa ilaa 7 gasaa'ira 7da ciidankan saldhigga labaad ee ilaalada xeebaha wuxuu ka howlgalaa ilaa 2 gobol Siril iyo Awdal xeebahooda rugta labaad ee ugu weyn waxa weeyaan saldhiggii waa Saylac rugta labaad ee weynina waxa weeyaan waa Lughaya ilaa Farmalo iyo Caddo inta ka dhaxlu ka howlgalaa gazaa'irkan uu degay ciidanku ka howlgalaa de waxaan gudanaa waajibaadkayga iyo hawl maalmeedkayga qaran ee masaaran ayaan sidii loogu talagalay u gudanaa gazaa'irkan waxa weeyaan waa gazaa'ir barwaaqa ama dalxiisa duurjoog baa ku nool dhir baa ku nool intaba waxaanu ilaalinaa deegaanka haday tahay environmentka haday tahay xayawaanka ku nool haday tahay waxyaabaha sharci darrada ku soo galaya intaba waa ilaalinaa waanu la soconaa waxaynu ku dhex jirnaa wali gasiiradda Sacaadiin halkan aynu marayno waa gacanka gasiiradda Sacaadiin waa gacan dabiici ah isla markaasina bilicdiisa iyo quruxdiisu aad moodayso in aad joogto meelihii aflaamta lagu soo matali jiray dad badan ayaan rumaysanin sawirkan marka la yiraahdo waa goob Soomaaliland ka tirsan oo ka mid ah gasiiradda Sacaadiin Faysal Ibrahim King Kong ayaa loo yaqaana waa ku xigeenka isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee gobolka Sanaag waxaan weydiinaynaa bal in uu wax nooga sheego marka ugu horeysa bal khayraadka baddeenan maadaama uu ka mid yahay mas'uuliyiinta kalluumaysiga isla markaasina isaga laftiisu uu yahay dadka shirkadaha kalluunka soo saara wax ku leh Faysal bal maxaad arrinta ka sheegaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa ilaahay mahadi maanta haddaad socotaan TV-ga qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawshiisii qaranka gudanayo oo ilaahay tusay khayraadka iyo dabiiciga dhulkeena uu leeyahay ee gasiiradda Sacaadiin Soomaaliland waa gasiiradda weyn ay matalaysaa waana gasiiradda ugu qurux badan badkeedu wuxuu dhan yahay 7 kiiloomitir oo square weyn gasiiradani gacanka imika hadda aan ku jirno waxa la yiraahdaa Quraan Jaale ilaa waxaan garanayaa anigoo yar oo 10 jir ah Allah u naxariistay aabahay oo la oran jiray Kaboode oo kalluun ahaa aan kula shaqeyn jiray waa gacanka aan kula baxay magacan imika lagu yaqaananaysta ee King Kong maxay tahay macnaheedu marka waa film waqtigaas soo jiray 1985kii oo nin filmaanta matali jiro big monkey ahaa oo ku matali jiray marka waqti aan yaraabay ahayd gasiiradda baan ku dhex ciyaarinay anoo ku matalay marka monkey inaan ahay oo gasiiradan fuushan geedaha fuushan magaas ali waraba King Kong ninkan saasan gasiiradan kula magac baxay gasiiradina marka waa gasiirad taariikhiya waqtigan ka sheekaynayo ilaa 5 kii oo arday ahaa ilaa hadda waan ku dhex jiraa badda
maasha allah iminka jamhuuriyadda Soomaaliland aan joognana waxaan ahay ku-xigeenka isku duwaha gobolka Salal kalluumaysataduna aad bay ugu ilaaliyaan jasiiradan ciidanka qarankuna aad bay u ilaaliyaan ciidamada la jooga markasta ilaaliya oo goobjoog ka ah dhirtan waa dhir qaaliya lama helo dhirtan hareeraha inaga xigta bilicda aadka u sareysa sameynaysa waa dhir si dabiici uga baxday baan filayaa goobta maxaa la yiraahdaa magaceeda dhirtan horta niyo taariikhiin anagu waan ku soo gaarnay laakiin waxaa la yiraahdaa jasiiradan waa jasiirad waxa ku dhex yaala baraago waaweyn oo Turkiga iyo Cusmaaniyadii ay sameysay diyaaradaweyn baa ku nool geedkan waxaan ku soo gaarnay aabayaasho in lagu yiraahdeen geedkan waxa ku beeray in dawladii hore Cusmaaniyiintii waxa waa geedkan meelaha Jazaa'irka ayuu maganaysaa ku badan yahay xagga kalluumaysiga afaymadka marka loo eegana waxa la yiraahdaa in mangrove-ka baa la yiraahdaa oo kalluunka ku nasta waxaanta dhigta waa meel qaaliya waan saadaradeed waxaan sheegaynaa in dadku cid kasta oo geedka aragta inay ilaaliso waqtiyadii hore waxaa jiri jiray oo maraakiib si sharci darro ah uga kalluumaysan jiray badda Soomaaliland arrintaas xilligan haddaba ma sii jirtaa mise waa ay dhamaatay wallahi horta xeebteenu way ballaaran tahay xeebteenu waa xeeb aad u ballaaran iminka ka horowna maanaan helin awood aan ku kontrooli lahayn xeebtaa dheerna iminka gaadiid fiican baa noo yimi gaadiidka iminka waa la keeno berberu yaalaa insha Allah dhaqsana wuu noo soo gaadhayaa waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan xeebteenu inta xuduudeena inuu si fiican u kontroolo gacanta ku qabanno wax tuugo dambana aan iska ilaalino iska difaacno toddoba gasiiradood ilaa 8 gasiiradood ayaad carabka ku dhufatay in ay ku taalo area-dan badina ayana waa jirtaa oo waa badweyntii ciidanku dhamaan ma ka wada hawlgalaan dhulkaas oo dhan dhamaan iyaga kontroolo ciidanku gacantana ku haya ciidanku iyaga kontroolo gacanta ku haya qaarna way degan yihiin kuwa kalena way kontroolaan maalmeedkooda ku gutaan badda Soomaaliland waxa ay leedahay khayraad la mid ah ka bariga oo kale haddana sidii loogu talagalay looguma wada faa'iideysanin maxay haddaba sababtu tahay horta niyo khayraadka baddeena ku jiro waa nimca baddeena ku jirta bariga badda ku sheegan nimcada baddeena fadhido ilaahay tusaan leenahay waxa kamid ah lulul marjaanka kamid ah alaabtan sadafta la yiraahdo oo dheemata ku dhasho beeraha jira farm fish waxa la yiraahdaa jirta hal nin oo Soomaaliland oo wali isku dayay wax farm fish la yiraahdo oo kalluun beerta lama hayo Uganda oo wadan lagtaana arda la yiraahdo ayaa Afrika wadanka labaad ee kalluumaysiga ugu horeeya anagoo badda inta leeg anagoo lehna ma hayno cid kalluumaystada naga caawiso oo aan wasaaradda kalluumaysiga iyo hay'ado yar oo aan naf lahayn oo awood badan lahayn ayaa dawladdu ayaa noo soo dirtaa marka waxaan codsanaynaa in shicibkuna ay gacan xoog la qaadaan xukuumadduna ay xoog siiso hay'adaha si ay wax ugu qabtaan dalkooda iyo dadkooda waxa jira xitaa in shacab kor la quusaa jirta oo loo tugo marka jasiiradda la yiraahdo shacabyaha reer ka xiga wala dhayf gareeya aniga idin la hadlay imika dhayf baan ahay 250 inan oo reesaylaca oo Eritrea tagay 2000 iyo waxay ahayd 6 ilaa 2009 ku maqnaa ninkii tababaray aniga ahayd oo dhayfarka ah xamaa ku quusiyay tababarkan aniga waxa ay siiyay wasaaradda kalluumaysiga oo ay dirtay dalka Djibouti waxaan ugu tababartay hay'ad Ingiriis ah maadaama ninkii kalluunka markuu kalluunka soo saaro kiilo kalluunkan uu yahay 12 shilin kiilo hilibkana $10 yahay ya ninkii kalluunka markaa niyad baa ku imanaya kalluunka cid ka iibsatana meelayo marka dadku waa in kalluunka la baraa kalluunka inuu nafaqo leeyahay wasaaradda caafimaadku ay ka shaqeysaa saasaan ayaan ka codsanaa dawladda waa hagaag leydha iyo jawiga ayaa waxa uu yahay mid aad u qurux badan waqtigeenu joognada ma jiro kuleel ay naftu ka hayso amaba ay diidayso iyadoo inta badanba xeebaha dhinaca galbeed ee Soomaaliland sida Lukaya Seela iyo Looyacdo intuba aanay lahayn kuleelka xadaafka ah inkastoo waqtigii xagaagu uu wali harsan yahay balse guud ahaan ay ka nasileeyeen kuleelka badan ee xeebaha bariga Afrika ay leeyihiin aniga saaxiibka Axmed Muuse iyo inta kale ee la socota mas'uuliyiinta kalluumaysiga bal waxaanu tagi doonaa mar dhow gasiiradaha kale ee tirada badan ee ku yaala gobolkan Salal gaar ahaan ceebaad oo ah tay noogu soo xigtaa waxaan joognaa gasiiradda labaad ee ugu weyn Soomaaliland waa ceebaad
jasiiraddan ceebaad waxa ay caan iyadu ku tahay oo ay kaga duwan tahay jasiiradaha kale waa goob ay ku kulmaan shimbiro kala duwan oo shimbirahaasu ay yihiin kuwo ka kala yimaada meelo kala duwan qaarna ay yihiin kuwo sanadka oo dhan fadhiya jasiiradda lafteeda qaar ayaa waxaa loo sheegay inay ka yimaadaan talowga badda cas qaar waxay ka yimaadaan ilaa waddanka ciraaq sidaad arkaysaana iyagoo xaddhaafa ayaa ay fadhiyaan jasiiraddan soona fadhiistaan halkan ayay ku dhalaan wax ayay ku quutaan isla markaasina waa goob bilic siyaada ah ay u sameeyaan jasiiraddan ceebaad shimbirahan kala duwane shimbirahani waxa weeyaan kuwa muwaadina jira kuwa noocyada muwaadinka waxa la yiraahdaa nooc waxa la yiraahdaa jaliilka nooc waxa la yiraahdaa subeerida noocan xulun galaan u naqana laakiin noocan noo yimaadeen nooga yimaada xaggan gacankan carbeed oo waliba ilaa ka soo yimaada shimbirlay baa jirta shimbiraha kale oo ka weyntahay basra la yiraahdaa waa shimbirta caadi weyn in mar dhow kamarada ku qaban doono waqtiyada xagaaga ayay ka tagtaa halkan waxay la tagtaa basra ay tagtaa basna waa ciraaq yaa inta jiyada kale waxay nala joogtaa halkan oo ay timaadaa intaasna way soo gooshtaa laakiin shimbiraha kale deegaanka ah halkan way ku dhalaan waqtiyada bisha 7 ilaa bisha 8 jasiiraddan waxaa looga qaataa beedka ay dhalaan markay ka farabato kalluunuhu beedkaas ay ka samaystaan in maxaa la yiraahdaa keega ama doorshaha waxa Soomaaliga lagu yiraahdo magaranaysaa oo carruurda u geystaan waana jasiirad aad amnigeedu u fiican yahay ciidanku markasta joogo la ilaaliyo marsan noqon karaysa marka halkan waxaan ku talinayaa in saldhigga weyn ee ciidanka badda ee jamhuuriyadda in halkan ba laga dhigo maadaama fiyu fiican uu leeyahay jasiiradda ceebaad waa jasiiradda labaad ee u weyn Soomaaliland iyo gobolka Saleelba waxa kale oo ay saldhigu tahay ciidamada ilaalada xeebaha waxa kale oo ay hodan ku tahay kalluumaysiga waxa isugu yimaada doonya fara badan oo dalka gudihiisa iyo dalalka jaarkaaba laga leeyahay jasiiraddani waxa ay leedahay daaq iyo caws aad u wanaagsan waxa kale oo jasiiraddan ceebaad ku yaala noobeed ama bataala dheer oo la dhisay xilligii Turkigu uu halkan ka talin jiray waxaana jasiiraddani ka tilmaan qaadan jiray maraakiibta waaweyn ee badweynta maraysa isla markaasina waxa ay tahay mid meel fog laga arki jiray iyada oo signal ama calaamad leedahay ay ku ooli jirtay haddaba taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee galbeedka Soomaaliland ee gobolada Awdal iyo Salal ayaanu halkaasi kula kulanay waa jasiiradda ceebaad oo aanu wax ka wadiinay taaladan iyada ah halkan aan joogno maanta waa jasiiradda ceebaad meeshan aan hoos taaganahay haddana waa minaaradii loogu talagalay in ay hagto maraakiibta aan badooyaha badda maray meeshan waa meel taariikhi ah waqtiga la dhisay waxa ay dadku ku sheegaan inay tahay waqtigii xukuumaddii Cusmaaniyada amba waqtigii Turkigu haysan jiray dalka waxaana loogu talagalay xaggan waxay naga gudban shacab weyn oo ku gudban jasiiraddan xaggeega kore deedna maraakiibtu markay habeenkii marayso in ay arkaan inay marayaan ceebeed oo shacabka kor uga baydhaan si aanu ugu geysan damage amba ayna waxyeello soo gaarsi jasiiraddan aanu joogno waxa xaggan ka xiga tii hadda aynu soo maray ee ceebeed baashi Saadadiin horta Soomaaliland jasiiradaha gobolkan ku yaala Salal waxa ay yihiin 7 jasiirado waxa ugu dheer oo xaggan inaga xiga jasiiradda 65 kilomitir noo jirta oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa Dahradda 65 kilomitir baa xagga inaga xigta xaggan waxa inaga xiga markaad Saadadiin joogtaan ba halkan aynu joogno 3 kilomitir baynu saaw kici waxaynu tagaynaa jasiiradda la yiraahdo Sheekh waxa ku xiga Koomali waxa ku xiga Dureen waxa ku xiga Abu Milix waxa ku xiga Suluqtiya 7 jasiiradood ayaa ku yaala halkan 7 jasiiradood ciidanka Soomaaliland ma ku filayeen ilaalinteeda khibradeeda iyo tababarkeeda Soomaaliyeed waxaan oran karaa ciidanku way ku filayeen jasiiradaha qaar baanu deganahay qaar waxaan ku samaynaa check oo waanu checkaraynaa oo waxaanu tagnaa subaxdii habeenkii intaba waanu eegnaa qaar waanu deganoo tan oo kale waanu deganoo deegaan baanu ku nahay Koomali oo kalena waanu deganaa suuqtiyada taa loo yacdo xigtana waanu deganaa xadka xigta inta kalena waanu ilaalinaa
oo habeenkii subaxii waqtiyada qaar baanu soo marnay waana ku filannahay ilaa 7 gasiiradood hadda gaadiidka badda ee ugu badan ee halkan lagu arkaa waa doonyaha yaryar ee kalluumaysiga iyo mararka qaar doonyo ganacsi yaryar oo kooban sida kuwaasi oo isugu jira kuwo laga leeyahay Somaliland iyo qaar ka yimi meelo kale sida Yemen oo kale balse sifo sharci ah badda Somaliland ku soo gala qaab sidee ah ay haddaba gaar ahaan kuwa kalluumaysatadu ay halkan kalluumaysiga ay uga fuliyaan laba nooc oo wasaaradda kalluumaysiga sharciga waan ku bixinaa horta maadaama aan baraf dhaliyaal waaweyn aan la haysan doonyahan carabta inuu yimaado iyaga barafka keensada laashashka muwaadinkuna way u shaqeeyaan wixii shaqayn karaya kalluunka ayay ku rogaan iyaguna ruqsad ay badda ku joogaan oo ay ku kalluumaystaan inta ay joogaan qaar la siina way jiraan oo jalbada yaryar oo laba tana hal tana ayaa noo yimaado xagga Yeemanta laakiin kuwan big boatska ma kalluumaystaan doonyaha wadaniga ah ee reer Zeylac ah ee reer Lughaya ayaa kalluunka dib uga iibiya ilaa reer Zeylac baan ku shaqeeyana sida laga warqabo tahriibku waa aafo saamaysay guud ahaanba bulshada geeska Afrika siiba dadka dhalinyarada ah meelo kala duwan ama dariiqo kala duwan ayaanay safarkooda ay u adeegsadaan oo ay marin ka dhigtaan tahriibayaashu haddaba xeebaha Somaliland arrintaasi ma ka bad qabaan mise meelaha qaar ayaa ay ka saamaysay wallahi tahriibku horta uu jiraa uuna socdaa dadkuna horta Soomaalidu waxay u badan yihiin xuduudkan Djibouti bay ka tallaabaan halkaas loo yacdaa lagu ururiyaa kadibna 4 maalmood 3 maalmood marka la ururiyo waxa loo keenaa UN ta u timaado halkaas waraaqay ku siisaa waxba ka hadha waxa ka hadha culays bay nagu hayaan habeen iyo maalinba waa dad socota waa dadan dignayn waa dad tahriiba xeebteenu way dheer tahay inta ciidanku waa wareegaya annagoo ka hashayna ciidamada kala duwan sida ciidanka qaranka ciidanka migrationka hadii la ciidankeeda leeyahay booliiska dhammaan ciidamada kala duwan way ka hawlgalaan waana wada shaqeynaa xeebtan tahriibteedu waana socotaa laakiin badda ugu yar horta meel la maray marka xadka Djibouti waa noogu fara badan iyagoo uga gudba xagga Yeemanta Djibouti dhex maraan tahriibtaasi aad iyo aad bay u socotaa dadkaasi dalkan Djibouti ee jaarka nahay dhinaca tahriibka iyo hawlaha badda iska kaashataan oo xiriir ma jiraan xiriir wanaagsan baa naga dhaxeeya tahriibtana waan iska kaashanaa wixii kale badda carqalada anagu alxamdulillaah rabbil caalamiin wali wax badcbadeeda ma naarago saldhigyada kale naga gudban laakiin masuuliyadda anaga wax weeyaan waa wixii kontrabaan iyo wixii tahriiba intaba waan iska kaashanaa xiriir wanaagsan oo leena iminka waxa ay joognaa gasiiradda Koomaali waa gasiirad kale oo ka mid ah gasiiradaha Somaliland ay leedahay gasiiradani sidaad arkaysaan waa ay ka kooban tahay gasiiradihii kale asaha tayada lafteedu waxaa ku fadhidaa dhul aad u ballaaran waa dhulka dabiiciga ah ee Somaliland kuwaasi oo hadii laga faa'iidaysan lahaa wax weyn run ahaantii tar lahaa waa meelaha khayraadka samarkaasina dabiiciga ah hadogorna dalxiiska loo tago sida idin muuqato dooyo yaran ayaa halka yaala kalluumaysatada ayaa ka kalluumaysta iyadoo kalluunka meelaha laga helo uu yahay kalluun aad u macaan dadkeenuna ay aad u jecel yihiin waynu ka sii socon doonaa waxaynu gaari doonaa dhowr gasiiradood oo kale oo iyaguna dhinaca midigta aynu u kici doonno oo inaga qaban doonaan weli waxaynu ku dhex jirnaa jasiiradaha kala duwan ee badda Somaliland ay caanka ku tahay waxaynu soo marnay Sacaadadiin waxaynu soo marnay ceebeed sidoo kale Koomaali ayaa dacalka waqooyi galbeed inooga muuqata oo lafteeda aynu soo laafnay halkan imkaan taaganay waa laba gasiiradood oo yaryar oo isa saaran laakiin mushaakh ayaa la isku ilaahdaa waa dhulka Somaliland ay caanka ku tahay gasiiradaheeda dhinaca dalxiiska dhinaca khayraadka badda intaba aad hodanka ugu ah har waxaad ka warantaa gasiiradahan wax dadoo kumayna arkayn xoolatoona marka ma sharciga dawladda aan u ogolayn mise waa nolosha ku adag horta ma gasiiradahan waad ogtahay biyo ma laha saad ogtahayba xaqiiqiyan anagu weli sharciga gasiiradaha lagu degayo ma hayno kalluumaysato baa lagu arki karaa laakiin wax dad oo deegaan oo caadi ah oo la degi karaa ma jiraan laakiin kalluumaysatadu waqtiga ay kalluumaysanayaan way degi karaan oo tan imika hadda soo marray waa ku arkaysay laashashku inay yaaleen dad kaloo shaqaysan oo kalluumaysatayna way joogeen taan maanta soo marray qaar baa joogay tiyaan saaka marray qaar baa joogay kuwa inaga shisheeyana qaar baa joogay kalluumaysatadu meesha ay doontay degi kartaa iyagu baddi bay ku dhex jiraan waqtiga nasashada amba wax la cunaya ayay degaan bariga marka laakiin dad deegaan oo caadi u degi karaa ma jiraan
sharcigaana weli anagu ma hayn مثلا inay biyo lahayn baad sheegtay ciidamadan degan xagee biyihii ka helayaan ciidamada annaga bariga uga geyna laakiin gasiiraduhu biyo ma laha gasiiradda aynu joogno ayaa barkadle waqtiga roobka unbaa taana la cabbi karaa laakiin haddaan roob jirin wax biyaa ma laha annaga ayaa uga geynayna bariga gasiiradaha ku yaala dhulka badda ee Soomaaliland ma aha kuwa aynu koobi karno kuwa aynu tirin karnada ma aha ilaa dacalka ugu bareeya ilaa ka ugu galbeedayo imika aynu ku dhownahay intaaba waa ay xiriirsan yihiin hasaatee markaynu eegno dhinacan galbeedka ee gobolkan Salal iyo dhinaca awdal oo bariga inaga sii dhigsan ilaa 10 gasiiradood ayaa imika Seylaciya hareeraheeda ku xeeran kuwaasi oo kala ah gasiiradda ugu weyn ee ugu ballaaran oo ah gasiiradda Sacaadadiin iyadoo magacaas uu ka soo jeedo magacii dadkii hore ee hogaamiyaasha ee dhulkan ooli jiray boqolaal sano ka hor ama boqoraha ee dhulkan maamuli jiray waxa kale oo ku xigtay sida arkaysan gasiiradda ceebeed oo yanaanu ku aragnay raadad taariikhi ah sida noobiyada weyn oo ay soo eegtaan ama ay soo eegan jireen maraakiibtu oo la dhisay xilligii Cusmaaniyiinta ama dawladda Turkiga ay dhistay sidoo kale gasiiradda Koomaali oo ah meel ay kalluumaysatada aad uga kalluumaystaan ayaa iyana halkan ku taala gasiiradaha kale waxa ka mid ah gasiiradda Mashaayikh oo ah labada gasiiradood ee saaran ee imika aynu dul taaganahay waxa kale oo jirta gasiiradda Dureen la yiraahdo sidoo kale Abu Milix Dahradda Shimbiraale iyo Shariifadda geesta kale haddaynu ka eegno gobolka Salal waxa uu ka mid yahay gobolada hodanka ku ah dhinaca kalluunka hasaatee guud ahaanba dalkeena waxaad moodaa in aan weli looga faa'iideysanin kalluunku sidii ku habboonad ee uu ahaa magaalada Seylac ayaa waxay lahaan jirtay xarun weyn oo dhinaca kalluumaysiga ah oo qabowjiyaasheedu iyo qalabkeedu ay ku xidhnaan jireen oo loo yaqaanay netfish hasaatee waqtigan ma shaqayso balse imika ayaa lagu tala jiraa oo loo diyaariyay in ay dhawaan hawsheeda ay bilowdo shirkadaasi waxaa halkaasi la keenay qalab muhiim ah oo hawshan lagu socodsiin doono haddaba isduwaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee gobolka Salal Cabdilqaadir Ismaaciil Jaamac oo loo yaqaano Xingalool ayaa waxa uu ka warramayaa qaabka xaruntan loo diyaariyay iyo sida ay u shaqayn doonto halkan waa qaybtii marka uu kaliya ka soo baxo processka mayrista baakinka loogu sii kala sameeyay lagu sii kala habeynayay iyana qalab baa ka dhiman oo meel hadda refreshment lagu wadaayo meelaha lagu jiro la soo dhigi doono berdhow halkan waa marinka uu ka soo galo dooyaha oo iyana workshop baa ku dhex oo la doona oo ka burburay oo iyadana dooyaha wixii marka ay u baahan farsamo ayaa laga soo geliyaa halkan goobtan maxay tahay lagu talagalay goobtan waa meesha saldhigga oo ah qalabka lagu shaqayn doono ee kalluunka hadduu yahay baraf dhaliye hadduu yahay qaboojiye hadduu yahay qallajiye hadduu noqdo noocyo kale oo casri ah oo halka ku jiro ku baaki garaysanba ayaa lil waa meeshii u ahayd workshopka ama fadhiga oo ahayd qalab insha Allah talaabada xigtana waxaad arki doontaan qalabkaas oo wada shaqaynaya sida aynu soo aragnay gobolka Salal waxa uu leeyahay xeeb aad u dheer iyo waliba gasiirado qurux badan oo aynu indhaheena la dul tagnay waxa kale oo aynu ka soo boganay in ciidanka ilaalada xeebaha baddu ay si weyn ammaanka halkaasi uga shaqeeyaan maamulka gobolka Salal ayaa iyana xil weyn iska saara ilaalinta amniga gobolkaasi Salal haddii ay bad tahay iyo haddii ay bariga tahayba bismillaah horta aad u fiicantay bad oo ogay bad dheer inuu gobolka leeyahay gobolka Salal ciidamadii ilaalada baddu way noo dhisan yihiin inkastoo imkaaniyaadka u baahanayeen aan wada helayn haddana waa niman ku filan hawshooda oo aad waajibkooda guta waa niman hawshooda ka adag aaminsannahay inta badan waxaa sameeya control waxaa maamula rag badyaqaan ah oo badda yaqaana ayaa maamula oo badan inagu haddaynu maanta halkaan marno waxaan naqaanaa halkaasi waa geedkii hebel markaad geedkaaga maraysid ayagu saasay badda u yaqaanaan hulahan soconaa xil hebel baan soconnaa halkaasaan soconaa si magaranaysa qof banaan maraya ayuu yaqaan badda kala yaqaan marka badda maraysid ay geedku sheegayaan marka niman halkan garanaya oo aad u shaqeeyay horena uga shaqeyn jiray ayaa badanka ciidanka noo maamula ciidan kamid ah wana ku filayn maamulkeeda badda oo aad u controlan wax dhib naga ma timaado